عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا السلام عليه ميل كستعدو كده على دي سكجوكتان maanta maxaa la idinka soo tuurayaa waxaan idinka soo tuuraa canjeela Ethiopian insha Allah bismillaah kariim. canjeela Ethiopian aan maanta sameysanaynaa. halkan waxaan ugu jira digaaggaasaan ku sameynaynaa. digaaggii waan soo maydhay, qalban ku soo maydhay iyo cusbo. tiirkiina waan ka soo saaray, waan soo nadiifiyay. halkaasaan ku soo diyaarsaday 5 xabo oo yaanyada mirooley, laba barbarooni oo kala nooca, toon. halkan waxaa iigu jira xawaash yar, basbaaska gaduudan iyo milix ama cusbo. dabkana maxaa ii saaran khiyaarey basashi baa ii saaran 1 kiilo iyo bar basala soo jarjaray weeye. basasha dabka saaraya marka hore, markay soo huurtaan alaabada kale ku darayaa insha Allah bismillaah kariim. waan isla soconaynaa insha Allah. maanta canjeela Ethiopian laga soo tuuray. canjeeladii waan sameeyay iyadana, laakiin idin lama wadaagin, mar kale idin la wadaagi doono insha Allah. ayay walaalahay waa taas basasha gaduudatay ma fahanteen. taa marka basasha isku dhex gashay gaduudatay maxaan ku darayaa xawaashkii, alaabada yareed baan ku daraa, milixdii iyo basbaaskii iyo xawaashka. intaasaan ku darayaa. waa maraqay canjeela Ethiopian la sameynaa ma garasay. intaas baan haddana isku soo fiirinaya. basasha dhamatay noqotay 1 kiilo bar bay ahayd, soo yaraata fiir cabaar baan isku daboolaa. tamaatigii baan ku daray hadda. tamaatigii aan ku soo shubay, waan soo shiiday koobka mashiinka ku soo shiiday. haddana waxaan ku shubayaa tamaantada shiidan baan iyaga ku shubayaa. adee 2 malqacdood 3 malqacdood camal aan isku labayaa kulli ama isku walaaqayaa. marka khiyaare hadda alaabadii yaanyadii wixii dhammaan isku dubadhaceen waxaan ku shubayaa hilibkii baan hadda ku ridayaa insha Allah bismillaah kariim. alaabta markay isku soo wada shiilantay waxaan ku ridayaa digaaggii. hilib maaha, waa digaag waxaan ku sameynayaa ama chicken qofka suu yaqaano. waan isku walaaqayaa marka suuga Ethiopian-ta waa inay saarnaato ugu yaraan 2 saac 3 saac. marka aan ka qaadno ay soo bislaato isku soo noqonayna insha Allah. intaas way ka kooban tahay, intaas la isku darayaa. khalaas hadda saas ay ku diyaarsan tahay. daboolkan saaraya 3 saac 4 saac waa inay saarnaato. adi 3 saac ilaa 2 saac iyo badh ay saarnaanaysaa dabka. bacdi bislaanaysa sababta waqti dheer bay qaadataa. marka hadda waa taas tuulo isku soo dhamaystirnay. wax dambe lagu daraya malaha. marba waan soo noqonayaa. wax yaasaan walaaqa bas khalaas lagu darayo waa lagu dhamaystir. aan ku darayaa oo dhiman toontaas iyadoo burbuuran baan ku dhex ridayaa. barbaroonigaana hadda waan dusha kaga daraya insha Allah. labadii hadda barbarooniga ay tusay waa kaasa. walaalahay waxa la joogaa finaalkii ama kama dambaystii maraqeeni insha Allah bismillaah kariim. maraqa marka oo maraqa canjeela Ethiopian-ka maxaa lagu gartaa inuu bislaaday? saliida soo kormarta. oo jeedaan saliida dhan uu soo tufaa. xabad saliida dhexdiisa kuma hadhayso. saliida hadduu saas u soo tufo waa diyaar, baana ka dejin kartaa. ma fahanteen khiyaarey. marka hadda aniga wuu diyaarsan yahay. waxaan ku shubayaa ukunta biyaan ku soo kariyay, waa soo dhilay. bacdi ukuntii aan ku daraa. waan ka dejinayaa dabka. already waan ka damiyay dabka. way sii karkarayaa weli, laakiin waan damiyay dabka. wuu dansan yahay. khalaas saas uu noogu diyaarsan yahay. ma fahanteen. haddana waan soo guranaynaa insha Allah. okay khiyaare waan soo diyaarsanay canjeeladeeni maasha Allah tabaarakallah. waa taas ku soo dhawaada maasha Allah. waxaa ka dhahdeen khiyaare like the share the subscribe ta waa xaqiina ducada. asalaata ku darsan kartaa, waxa rabtaa geeska ka saaran kartaa. ana barbarooniga yaraan ku darsaday maasha Allah tabaarakallah. soo dhawaada walaalahayga sharafta badan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.